baaqan ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku aadanaa xaalad caafimaad darro oo soo wajahday Fuaad Cali Maxamed oo kamid ah gabdhaha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa waxa isla markiiba jawaab ka bixiyay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo loo diray diyaarad gaar ah si loogu keeno magaalada Muqdisho. gabadhan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd hooyo uur leh ayaa dhaaftay xilligii dhalmada isla markaana waxay gashay xaalad kooma ah oo halis gelisay nafteeda iyo tii ilmaha caloosha ku jira. kadib markii Muqdisho la keenay ayaa waxaa la dhigay mid kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada halkaas oo qalin loogu sameeyay. qalinka kadib hooyada iyo ilmihii caloosha ku jiray ayaa si nabad loo kala keenay. saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ku booqday isbitaalka si ay ugu kurgalaan xaaladda caafimaad ee hooyadan iyo ilmaheeda yar. Fuaad Cali Maxamed iyo saygeeda Xuseen Cabdullaahi Xalane oo ka wada tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si wada jira ugu mahad celiyay gargaarkan caafimaad ay u sameeyeen madaxda qaranka. anigoo ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed askari kamid ah xoogga dalka Soomaaliyeed Fuaad Cali Maxamed deegaankeedana ka soo jeedo Galmudug ka bacdina ka tirsan ciidamada Gado oo u wareegay dhankaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda ka hooseysa oo garabka isiisayba aadkana iigu gurmatay anigoo ku jira difaaca markii xanuunku ay qabtay taliyaalkayga dhamaana u mahad celinaya Ilaahay baa mahadda iska leh. markaan shalay furunta ku jirnay oo aan garabka raadinayna waxaan ka hadlaynay xuquuq naga maqan iyo xoolo. hadda maanta markii cilada ka timidna ka badan iyo ka fiican baan helnay. waxaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u sheegayaa inaan maanta niyadan hayna niyad ka fiican ay noo taagan tahay. Ilaahay iidankiis waan u mahad celinayaa taliyaalkayga dhamaanteen. dhinaca kale isna waxa goobta ka hadlay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cali Maxamuud Bogmadow waxaana kamid ah hadaladiisii. warbixintu wayna soo gaadhay waanu gudbinay mahad Allah madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amar buu bixiyay uu leeyahay diyaarad degdeg ah loo diro maadaama ay tahay askariyeed difaac ku jirta oo uur leh oo umulaysa oo dhibaataysan. sharaf bay noo tahay isagana u mahad celinaynaa taliyahana u mahad celinaynaa ciidankana waxaan leeyahay hadday xuquuqooda ka maqnayd oo xuquuq la raadinayay oo xuquuqdiina la idin soo dhiciyay waxaad ogaataan Fuaad Cali Maxamed oo yana askariyada daryeel in la siiyay. ugu dambeyntii taliyaha ciidanka dhulka Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in arintani ay mooralka u dhisayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana uu mahad celiyay madaxda qaranka. Fuaad waxay ka tirsantaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa askariyad muwaadinada oo difaaca muddo badan ku soo jirtay sida hadda ay jananku idiinsi tafaasiisha u sii bixiyay iyada oo foolanaysa ayaa maartay xogteedana soo gaartay danna waxaanu la wadaagnay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo si degdeg ah uga jawaabay in askariyadaas si degdeg ah loo soo qaado loona diray diyaarad geera halkaana la keenay ka bacdina operation lagu sameeyay haddana way caafimaad qabtaa. ilmaha yar ee ay dhashay hooyo Fuaad Cali Maxamed oo ahayd gabar ayaa waxa loogu magac daray marwada madaxweynaha Maama Saynab. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.